shacbiga ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa saaka labadii ragcadood ee salaatul Ciid al-Fidriga ku oogay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium ee magaalada Ceerigaabo. shacbigan oo isaga kala yimid dhammaan badaafaha iyo xaafadaha magaalada Ceerigaabo ayaa soo buux dhaafiyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceerigaabo iyadoo dadkan wajiyadooda laga dhahanay shucuur farxad ku dheehan tahay oo ku wajahan sida nabadgelyada ay ku soo dhameysteen gudashada cibaadadii bishii barakasnayd Ramadaan waxaana dadkan isugu hambalyeynayeen farxadda munaasabadda Ciid awgeed waxaana shacbiga magaalada Ceerigaabo kala qayb galay tukashada salaada Ciid mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada waxaana markii laga soo jeestay tukashada salaada Ciid al-Fidriga halkaas dadweynaha kala hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo ka hadlay muhiimadda nabadda iyo sida loogu baahan yahay in bulshada gobolka Sanaag ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo dhaawici kara ammaanka iyo xasiloonida gobolka Sanaag. farxad baynu ku wadayeynaa waxaynu u baahannahay maanta halkaynu taagannahay inaynaan ka noqonin oo shaydaankii waaweynaba la soo fasaxay inaan dib u noqonnay inaynu halkaa ka sii wadno amni baynu u baahannahay ilaahay cid kasta oo xumaanayna damcada ilaahay iyada ha ku ekeeyo tan nabadgelyo darro uga baqi mayno ciidan waxayna yeeli karto aynu maanta isleena waxba idin yeeli karto inuu uga baqaynaa ma jirto laakiin inuu gudaheena uun dhibaato kale inama haysatee insha Allah gudaheena nagaasano walaalayaal ilaahay ducada ha inaga aqbalo. waxa iyaguna halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur taliyaha qaybta bilayska gobolka Sanaag Gaashaan Sare Axmed Saciid Garoor iyo Sheekh Maxamed Cali Biixi oo dhankooda ka hadlay arrimaha ammaanka iyo daminta shaqaaqada ka soo noqnoqotay degmada Ceelafweyn. maanta waa maalin ciid Ramadaan baynu ka soo baxnay ilaahay dilaaqeena ku rido waa inaga aqbalo baan leenahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa amni iyo iimaan ilaahay idankii waxaan toobad weydiisanaynaa rabbigii khaaliqa ah maalinta jamciga ee munaasabada la isugu yimi inta ka bacdi waxaan leeyahay kelmad dardaaran oo ah nabadgelyada ahlul xal wal aqd baynu intaas wada nahay muuminiin baa tihiin muslimiin baa tihiin waxa xunnaanu midowna booliis wada noqono reer Ceelafweynow wax lagu qoslo iyo wax lagu maadeysto iyo wax laga naxo iyo taariikh madow ayaad noqoteen waxa maanta idin meeyri kara wixii hore oo dhan waxa idin ka meeyri kara inaad nabadaan oo heshiisaan oo gacmaha is qabsataan oo aydun lillaahi u heshiisaan ayuun baa idin meeyri kara. wararka kale ee naga soo gaaray degmooyinka uu ka kooban yahay guud ahaan gobolka Sanaag ayaa sheegay in iyagana jawi nabadgelyo ay ku dhameysteen munaasabadii Ciid al-Fidriga. Wayoonis Sheekh Axmed Universal TV Ceerigaabo.